markana sheekh cabdi xayi sheekh aadan oo imaam ka ah masaajidka Cumar bin Khadaab ee ku yaala kilomitir 5 Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa khudbadiisa inta badan ku saleeya siyaasadda iyo xaaladda dalka. haddaba waxa ku dhaliyay sheekha inuu khudbadiisa u soo qaato arrimahaasi ayaanu wuxuu ugu waramay wariyahayaga Ciise Xaaji Cabdulle. طبعا أنا خطبة عن ذلك إيجابية وحن مرولبا عن بيش ودقة درانك دتك إيوه وحي مركز يعني واقعة يجهر يالا خطبة أصلا وحلو طلقلي دتك سوء معنا هي أسبوع دمات في سمانة الجمعة كلن كاسوين أسبوعي أما تدبع لها in wixii dantooda ah oo noloshooda la xiriira in loo sheego asalka khudbada saas ay ahay marka anu kaasan ku bees gareeyaa oo maanta maxay umada u baahan tahay hadii arrimo bulsho tahay hadii arrimo siyaasadeed tahay marka waxa dhici karta dadku inay qaybtaas yani oo dareenkooda la hadlaysa in ay tahay waxa ay xiisaynayaan khudbada marka maluuqada af Soomaaliga ayaad ku aqrisaa mise Carabigaad ku aqrisaa marka hore kadibna af Soomaaligaad ku fasirtaa Carabiga ayaan ku akhriyaa labada khudbo منبركا كدي مركي عن ثلاثة تكنو أيام الصومالي خطبة عربية هي أيام دتك أوقف الصراع دتكم الحياة يومها تيمين إني يعني أينا مركي أي ثلاثة أن تكنو أينا بساتي كده حينين أيوة قدامين أيا قيسة الصومالي يعني وحياة بدن أي إلى كيف الإنسان يجعلهم مركا يعني خطبة لبضة هو عربي ثلاثة مركي تكنو أيام الصومالي أوقف الصراع عربي عن خطبة خصوص آخرين maxaa kugu dhaliyay marka khudbada inaad uga hadasho arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda طبعا waxa igu dhaliyay markaan akhriyay siirada iyo taariikhdii hore ee dadkii hore muslimiinta ahaa yani iyo masaajidka ahmiyada oo muslimiinta u leeyahay iyo risaalada masaajidka oo ah risaalada ummadda lagu hogaamiyo iyo meesha ay dadku ay aadka ugu xiran yihiin waxay ugu dhalisay meesha dadka laga hagaajin karo ama wixii yani dantooda ah oo bulshadaas lagu hagaajin karo inuu masaajidka uu yahay marka waxaan go'aansaday maalin walba oo jimco ah maadaama dadku ay meel fog ka imaanayaan oo ay rabaan in ay isbuucaasi yani ay wixii ama jiray ama dareenkooda ah ama meeshii ay ka dareemayeen in laga hadlo inay rabaan inaan kala hadlo ayada oo aanan dad gaar ahna aan ataag aan ku qaadaynin dad gaar ah aan soo dhaweynaynin laakiin wadaadi guud oo ummadda Soomaaliyeed duruufta maanta ay ku jirto ee khilaafaadka ah si looga bixin lahaa oo wadanka loo dhisi lahaa oo ummadda jirta u noqon lahaayeen sidaas ayaan uga hadlaa taasana ugu dhalisay baahida jirta ayaana taas keentay Sheekh Cabdul Xayi dad badan waxay ku arkaan inaad dawladda dhankeeda u xagliso dhanka kalena kuwa kalena waxay u arkaan in xaaladaha kala duwan aad ka hadasho marka adiga ma muxaafid baad tahay ma mucaarad baad tahay maxay kugu tilmaamay marka dadka markii social media arko khudbadii aan jumcada soo akhriyay khudbadaas oo khudbo socotay oo afkaarteedu ay si caam ay wada ahayd ayaa waxa dhacaysa mararka qaarkood dad si ayagu markaas ay meel u dareynayeen inay meesha ka dhex arkaan marka inay ayagu kala jiidaan oo ay markaasi ay u sameeyaan ciwaano cusub taasna aan mar uga hadlay social media oo aan ku iri hadallada dadka qaar ay u isticmaalayaan kelimooyinka iyo ciwaanada u sameeysanayaan aniga ciwaankii aan irina ma aha waa dad ama dad ku soo jiida isla ama si gaar ah inay ayada yani ila jirta ka dhigaya laakiin anigu sidaas ma ihiye yani anigu waxaan ahay dhexdhexaad oo ah in yani ummadani ay ummad noqoto oo yani ashkhaas iyo hebel berri way tagayaan oo bini aadamku adduunkan kuma waaraayo laakiin waxa haraya ummadda yani hadda kuwa jooga iyo kuwa soo socdaba anfacaya waa waxa guud iyo danta guud marka yani ama xukuumad hadda joogta ahaato ama mid imaanaysa ha ahaato يعني ما هو حن كان لا هذل ما أنت واحد تعينه هذل لو واحد هنا يعني هذل لو رسول جيله ومبادئ جود وما إلى كل سنة عن ربنا شيخ عبدي حي الشيخ آذن إمامكم مسجد كعمر بن خطاب مقالة مقدشة وها عيسى حج عبد الله يورمي